diinta Yahuudda ay qaadatay isaga dartii kadib markii diyaaradiisa lagu soo riday Suuriya waxay go'aansatay inay u aarguddo waa basaasad khiyaamaysay carabta saygeeda oo Israa'iiliya dartii waxa ka tagay ninkeedii oo Falastiini ah isla markaa waxay u baxsatay Nimsaa si ay u soo barato jidka intay ku jirtay ay isbarteen duuliye Yahuudi ah waa isjeclaadeen waxayna ka baxday Islaamka iyadoo qaadatay diinta Yahuudda isaga awgi saygeeda ayaa lagu dilay Suuriya markaas ay go'aansatay inay u aarguddo khasaaro fara badan ay gaarsiisay Falastiiniyiinta sheekadeeduna waxay noqotay sidii halyeeyadii ay taariikhdu qortay Amina al-Mufti waa sheekada gabadh basaasad ah oo khiyaamaysay wadankeeda iyo diinteeda laabta Moosaadka dartii Amina al-Mufti waa reer Urdun asalkeeduna waa Shirkaasi sanadkii 1939 ayay ku dhalatay caasimadda Ammaan dhalinyarnimadeedii waxay xoog u jeclaatay wiil Falastiini ah isna uu khiyaameeyay oo ka tagay qalbigeedana jabiyay si ay u ilowdo Amina waxay u safartay Nimsaa iyadoo dhigatay cilmi nafsiga waxa ay isbarteen gabadh Yahuudiyad ah oo ay walaaleeyeen wiil wada diyaaradaha rakaabka ee Nimsaa oo lagu magacaabo Moshe Brad Moshe waxa uu Amina ka caawiyay inay hesho shahaado dhakhtarnimo oo been abuur ah Amina waxay la noolaatay Moshe qoyskiisa Yahuudda ah iyada oo jacayl u qaaday isagana kadib waxay ka codsatay inuu guursado balse wuxuu shardi uga dhigay inay qaadato diinta Yahuudda iyadana kuma ay walaacin ee ay qaadatay magaceedana waxa uu noqday Ani Moshe Brad markii uu bilaabmay dagaalkii u dhaxeeyay Carabta iyo Israa'iil sanadkii 1967 bishii Juun 5 waxa Israa'iil uga codsatay si mutadawacnimo muwaadiniinteeda duuliyaasha ah in ay dawladda ka caawiyaan difaaca dalka Amina waxay damacday inay Moshe ku qanciso inuu aqbalo dalabkaas ugu dambeyntii Moshe waa uu ka yeelay waxayna u anbabaxeen Tel Aviv duqeymihii ugu horeeyay uu ka fuliyay Suuriya ciidamada difaaca ee Falastiin waxay soo rideen diyaaradiisii Amina war naxdin ayaa soo gaadhay balse ma ay rumaysanay waxay u qaadatay in la afduubay Amina waxay si mutadawacnimo ah ula shaqaysay Mossad oo ah ciidamada sirdoonka Israa'iil ee dibadda iyadoo go'aansatay safar dheer oo ay ugu kuurgalayso halka lagu qariyay Moshe Lebanon iyo Suuriya ayaa ka bilowday baaritaanka iyo xaqiiqo raadiska waxayna aasaastay shabakad ka shaqaynaysa xidhiidhka iyo ciddii ku hagi karta ururka xoreynta ee Falastiin waqtigaas waxa uu cadaatay in saygeeda la dilay waxayna go'aansatay inay u wareegto marxaladda argoosi waxay la saxatay sarkaal haysta aagga telefoonada uguna hanjabtay inay fadeexadayn doonto kana dalbatay lambarada hogaamiyayaasha ururka xoreynta ee Falastiin shahaadadeedii dhakhtarnimo ee been abuurka ahayd ayay u adeegsatay xiriir lagu daweynayo qaxoontiga Falastiiniyiinta halkaas oo ay xogta sirta ah la wadaagaysay Moosaadka Israa'iil waxayna gacan ku daaweynaysay dhaawaca Carabta iyadoo tan kalena ku sababaysay dhimashadooda waxay soo xigatay qorshayaal tiro badan oo la xidhiidha howlgallada biimada ah Israa'iilna waxay dili jirtay xoogaga iska caabinta inta aysan howlgalkooda fulin waxay ka soo agdhawaatay Carafaad ayna heshay xogtii George Habash si ay u noqoto basaasadii ugu halista badnayd ee Israa'iil Amina waxay wada hadleen wiil Nimsaa ku nool oo Falastiini ah kaasoo xidhiidh la lahaa saygeeda walaashii waxayna u qirtay inay damacsan tahay argoosi Amina waxay ku soo laabatay Lebanon halkaasoo ay ka sii waday howlgalkeedii argoosiga inta kadib waxay dhigatay calaamado iyo ujeedooyin xilliga waxa Israa'iil si xoog u doonaysay Ali Xasan Salaama kaasoo lagu magac daray Amiirkii Casa waa ay soo gaadhay Ali waxayna ka wareysatay caruurtiisa waa uu la yaabay gabadhan isna weydiiyay sidee ayay ugu suurta gashay in ay Amina ogaato caruurtaada iyadoo sirdoonka inta lagu kugaag xeeran yahay waxa uu damcay in uu raad raaco gabadhan isagoo ay u suurta gashay in uu la xidhiidho wiilkii Falastiiniga ah ee Nimsaa wax ka dhigan jiray ugu dambeyn waa la ogaaday shaqadii Amina al-Mufti ee basaasnimada ahayd jidka u dhaxeeya Lebanon iyo Suuriya ayaa lagu qabtay waxayna isku dayday inay istisho balse kuma ay guulaysan waxaana lagu xidhay mid ka mid ah xabsiyada godadka ee Lebanon halkaas oo ay Amina ku dhadhamisay nooc kasta oo ka mid ah sida dadka loo jirdilo iyadoo rajaysay dhimashada kumanaan jeer ilaa ay ku qancisay nin askari ah in uu la baxsado ayna aadaan halka iyo Israa'iil balse waa uu ku fashilmay askarigiina nafta ayaa la dhaafiyay halkii ayaana Amina ay ka sii wadatay cadaabtii xabsiga iyo jirdilkii inta dabadeed waxay Israa'iil codsatay inay maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay haysato ay ku bedelato Amina al-Mufti isla markaana waxa heshiisku ka dhacay gobolka Qobrus waqtigaas Amina waxa daadeedu ay ahayd 41 sano jir ugu dambeyntii dawladda Israa'iil waxay ku samaysay basaasadooda Amina al-Mufti qalin xagga wajiga si ayna bulshada si fudud uga aqoonsanin ahaatana mid qarsoon warbaahintana aan ka muuqanin
qisadeeduna daarnaato midii wax kasta iibisay si ay u raali geliso Israa'iil.